السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الصوماليات ملك سؤال جوكتان يسكرتوا عن ضد ولسان حلو وناسن موضوعي ما أنت وكد وياهي موضوعي عندكم برتين وحنا كوساب سيهي قبر فنانة وأخذت كوسو المقالة مقدشة هرينا وقمت هيد كوح سوق عضي هاس عنصريسن ولا يرادو مالهين عدو حمر كذا قبرنا واحد سكوا هيستا غير مقدشة وقارو حيليهين شوبان ودقينا قارنا waxay leeyihiin gabadhani waa gabadhii xamar soo maxuu ahayti aflagaadaysay showna inay xamar ku dhigato xaq ma laha iyadoo raali gelin bixin waxa weeye marka laba qolba wax baan leeyahay qolada isku aadisay oo le waan meegin gelinaynaa abgaal isbaana mid baan leeyahay hawyaha kale soo haray ku dhigana mid baan leeyahay mid kalena waxaan leeyahay gabadha laftirkeeda iyo reerkeeda waaya aan ku bilaabo gabadhan magac leh waxaa la yidhahdaan umalin habboon nuura saasay magaceedu ahay baan malaynayaa gabadhaas waxaan leeyahay horta waad khaldantay doon aadan lahayn ayaadna raacday adduunyadana cadowgaagu meeshuu joogo lama tago haddaad qofigii u tahay waxaan maqlay inaad tahay samaroonna waxaa weeye dad aad u wanaagsan beel sharaf leh oo wanaagsan oo muxuu ahaaytay Soomaali weyn ah xagga aragtida ayaan anagu naqaan samaroon dad badan oo wanaagsan oo fiican oo fanaaniin ahna way leeyihiin oo kamid yahay Nimcan Hilaac oo ay kamid tahay Hodan Cabdiraxmaan oo ay kamid tahay Safiya Tusb waxa weeye lama tirin karo dad badan oo wanaagsan oo magaaladaas Muqdisho heesa qurux badan u qaadayna way ka soo jeedaan beeshuna waxa weeye beel shanta Soomaaliyeed aaminsan anagu intaanu beeshaas quruxda badan adigoo ka dhashay in aad dad cunsuriyad isku raacay oo maamul iyagu ay gooni u leeyihiin samaystay dhex boodo khalad bay ahayd isaaq marka la yiraahdo waxoodu baqarsana waa niman bareersan oo ku tala galay in maxaa ay ummadda Soomaaliyeed ay kala geeyaan sababtoo ah iyagu waxbay doonayaan waxa ay doonayaan waxay ku socon karaan inay maxuu ahaaytay ummaddu kala fogaato anigu asal fahma ama aan aragtidooda ka dhex arkay waxa weeye waa niman bareersan oo qoriga ay tuuraan qajaftiisa aan ka naxayn ninka heesta ku sameeyay maxuu ahaaytay abwaanka sheeganaya daxamar ma imaanay warkiisu waa cadiya ماليه العدد حما كدر بع كضاعة أديك مركب واد خلدمتي ودون أذن الله يبارك راعي صبر السؤال لما حبكم على خا وحكى قريب يا وحكى خصية من جيران لو ما نتكلموا هذا وحكوا هاي مركب روح يدنا تجربتوا إن صبرون تاي وأذن هوش يسجلين ولا حاجة كلنا معنا اللعيو هذا عبد الرحمن يصفية اسمه تتكلمت كهو فكر كي قباني أحيانا أمد اللي كلا جوين إن اللقب تي أهي مدعن أو حاول يوالو ضوف صعي ساقد دربان تنطي مقدسو إن أرتباط خرب بيكو باهي صوت إلهي عقلي بوكو سيجي ضد كان وحاوي انت العقل اللي ذاكري لي وحاوي غير مقدسو بركا أطلق تأدقو الشارع سواعي رالي هذا أن أورن وحيكو أرك كران إن عقل قوضي يسايس مركا تاسو وحاوي واتكو خلدانتي مقدسو إن أرتباط ما أهين وحالك يا أبوها قبري بحاسيس لولي هاتك قارني قلبك حوغا اسكي يهدين لكن دمركا إلهي سبحانه وتعالى واجبات مصارين حتى في حاجة كدوين حاجة اللي مديشين تنبغي كلام بالو قاضية قرآن بركات في رسول الزانية وزاني السارق والسارقة أيه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلهي ما لكم مكر فيك حدي محو هيتي يدم بقشان نينكو انت لو قاضية حدي اي وناق لتمانه إلهي سبحانه وتعالى انتو كو أبال مرينكو كلو كو أبال مرينيا مركا تو دمر meel iska dhiga alla xisaabtamaya qofkii dumarka ahaa haduu khalad galo waxaan ka baranay warwadayna Allah subhanahu wa ta'ala waxa way marka sabarada Saciid oo sharfan waxaan leeyahay mahadsantiin halkaas ka sii wada Soomaali weynimada gabadhaasna waxaan leeyahay waad khaldantay laba goor mar waxaad maxaa ay raacday doon adan shaqo ku lahayd oo maamul adan adu wax shaqo ku lahayd dadtii wax u caysay kadibna kuwii wax kula caayay igoo takaradood oo dhulkoodii joogaan dhulkaaga ma joogin waad soo aaday labada jeer baad khaldantay ee halkaas uu gudbay وياي نوقع قال اسمان اي يري قبل انغا كو ادن او مغين غلينين waxaan iri waa alxamdulillaah anugu barkan warkaas maqlay abgaal leh waxbaan magan gelinayna horta abgaal ismaan
waxba bixiyo magangelina ma yaqaano qofka abgaalkaana qof abgaala kaama celin karo isagaa la dilaya dhaqanka abgaalka ku naqin taasay ahayd arrinkaa markaynu baarnay waxaa weeye qofka abgaalka marka qof walaalkiisa yidhaahdo waryaa hebel aniga muxuu haytay kaa celiyey ama magan geliyey wuxuu isu arkaa in la yasay oo wuxuu leeyahay maalad waxay ka celin kartaa aryaa maad iga celi kara barrac waxaa laga yaaba inuu labadaba dilo kii abgaalka ahaye ninkii isku aadiyey iyo kii laysku aadiye labadaba inuu dilaa laga yaaba waxaa weeye marka horta abgaal magangelyo bartay war waa wax fiican waxaan leeyahay gabadhooda ha loo daayey maanta waa candhalo curatay abgaal wax magangelinaya waxay ila tahay inay wax la soo dhoweeye tahay hawiyaha kale waxaan leeyahay marka abgaal gabadha haddii isku aadiyeen u daaya kolleyba abgaal wanaag iyo magangelyo iyo gobonnimo kama ahane xoogaa caadifadii yarayda inu ka ahaa la durugtaan isleeyahay intaas yar habartan hebla baarqable leeyahay iyo wiilkan yaro muxuu ahaytay isaguna bilaal iyo waxaa weeye xoogaa xifaalta ka yaraaya inu ka lehay meelaha loo ordaayeen isleeyihiin meel marsiiyo gobonnimo kama ahan laakiin walaalkaa oo bartay in wax uu magangeliyo iyo qaabka wax loo magangeliyo waxaan leeyahay waa candhaloo curatay hortooda ha laga wareego oo gabadhaas hadday isku aadiyeen gobonnimadii hawiyaha lagu yaqiin ha lagu dhaqmo hana laga leexdo show hadday u dhigayaan waxaa weeye ha u dhigeen ahlan wasahlan reer muqdisho waxaan leeyahay maanta waad saxan tihiin takanadiina inaad ogtihiin oo ciddii wax idinka hadlaysa ama muxuu ahaytay magaaladaas muqdisho ilay ma ogtahay jamaadaadka maha cidda lala hadlayo marka la yidhaha muqdisho waa nabcahay waxaa weeye dadkeeda weeyaan dhagxaanta iyo guryaha meesha ka dhisan iyo waxaa weeye de waa jamaadaad cidna takana uma qabto haddii laydin yidhaahdo xamar waa cadow macnaheedu wuxuu noqonayaa dadka xamar ku nool waa cadowgeena marka inaad garataan ood fahamtaan waxaa weeye waad ku mahadsantihiin bahashana waxaan leeyahay halkaas halaga sii ambaqaado oo dadka afka xuna doqonta ah oo caasimadaas ummadda soomaaliyeed oo muxuu atay hooyadii dalka ah beel darteed raba inay u xumeeyaan waxaa weeye yaan laga yeelin baan leeyahay doqon yaan laydin arkin sabarka tirada badan waxaa weeye waa lagu nacasoobaa haddii laydin aflagaadeeyo waanad garataan haddii laydinku xadgudbo waanad garataan waa in muxuu ahay aysan suurtagal noqon in muxuu ahaytay maanta laydin caayo berrina ayadoo la qoslayo laydin yimaado arrinkaas arrin saxa weeye waa in lala xisaabtamaa qofkii muxuu ahaytay ku xadgudubta shacabka magaalada muqdisho ummadda soomaaliyed guud ahaanteed waxaan leeyahay arrinkani waxaa weeye arrin ummaddoo dhan u yaalla magaalo soomaaliyeed haddaad wax ka sheegto tira magaalo heblo way xun tahay macnaheedu waxaa weeye dadka meesha degan baad u jeedaa maanta hargeysa meel dhimatay hargeysa meel xun hargeysa waa necb haddaan idhaah macnaheedu isaaq waa necbay noqonaysaa sarbeeb ma aha isaaq waa nabcahay anigoo waxba kama duwana reer waqooyiga waxaan leeyahay ama isaaqa leeyahow dee noo bareera annaga oo meeshaad malihin cadow xamar ka duwan eheladeen malihin cadow hawiye ka daran dhaha taasna soo dhaha sababtoo magaaladii annagaa joogna hadda magaaladu waa caasimad soomaaliyeed laakiin dee magaaladii muxuu ahay toy meel bannaan maahay dad baa ku nool dadka ku noolayna waa annaga marka waxaa weeye mar dambe adinkuna waxaasa la soo shirtegina haddaad noo bareynaysaana toos noogu bareero maya annagu soomaali baan ula jeednay xoole ma nihin halkaas cidda degan bay ku dhacaysaa wixii aad dhahdaan iyadana waxaa weeye waa inaad ku xisaabtantaan barnaamijkan aad ku dheereeya ma rabo ugu dambayn gabadha waxaan leeyahay show aad xamar ku qabsato anigu riski inuu ku dhex jiraan u arkaa haddii lagu qabanayo ma diidani laakiin riski buu kugu yahay wax kastaa dhici kara waxaan leeyahay si tartiib ahoo nabada magaaladaas muqdisho uga tag raaligelinna soo bixi oo waxaad tiraa walaalayaalo waan gifeega raalli ahaada inkastoo aan ogahay inaad tahay hashii ninka gubran kaxeeyey ee la yiri dhanna uma fayooba oo laga yaabo haddaad hadda xamar heesaad ku raaligelinaysa qaadan inaad miisho adag ku noqon karin marka dee dhibaatadaas dhiiqadaas dhigaa isdhexgeliyey waxaan leeyahay ka xeelayso magaaladaas muqdisho isaga tag oo waxaa weeye adigoon dadku raalli ka ahayn haysku soo dhex istaagin lafahaaga wax lagu gaarsiin karaa ma dhiirigelin in la dhibaateeyo ma dhiirigelin in wax la yeelo laakiin waxaa weeye amnigeeda guud saasuu ku jiraa dhammaan waxaan leeyahay samaroon sicid
أدي مهتمتين وحقلات كل ذي المجلس كمان رسول حوي وشخص محوهيتي أما الخلضي أما هذه إبلي كذا ليها يسوق حبالي هذا وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.